الحمد لله والليال إلهي سبحانه وتعالى وحان نوغم هاد علينا نعمك فرها بدن إلهي ونوغم النيستي ويقوم انتهي نعمة الإيمان والإسلام نعمة إيمانك يا إسلام كنا وحا إلهي سبحانه وتعالى والسبب إنه قد لغي وفرق إلهي إنه قد لغي وإلهي إنه قسو ديبي نبينا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه وحمرك رنتي ددك مسلمين تاع ميل والبا ay joogan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba aanu la qaybsanayna farxadda hambaliyada aanu isugu bogaadinayno oo aanu isugu hambalyeynayno bishan barakaysan rabiicul awwal شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشي وكل شيء نبينا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه مال والبا ضدك مسلمينتو أي سجد ريان أفرادا وشعوبا همبليدا أي سجد ريان وحان أمد مسلمين توجه همبليين إن أي موجيان فرحدوا ذا وبشني أيسن ولمد نقن بلها كلا أو صوم مري محيا لي بشن وحكل شيء نبينا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه حلقي أول شيء حليدا وجدونا ونبي وينين جري حلقي أول شيء نبي صلى الله وسلم وبارك عليه حديث إمام مسلم في صحيحه وكوري وحل ويدي نبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين maxaad u soontaa maalinta isniinta ayaa nabiga la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam nabiga markii sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri daaka yawmun wulidtu fihi isniinta waa maalintii la dhalay ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam marka maalmaha way iga duwan tahay oo waan soomayaa shukri ilaahi subhanahu wa ta'ala aan uga mahad celinayo nicmada marka dadka muslimiinta waxa u haboon meel walba ay joogan bishan nicmadii ugu weynayd ee dunidana soo martay waa nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo baraka calayhi dhalashadiisii iyo bicthadiisii iyo tawxiidka oo ilaahay inoogu soo dhiibay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam bishan oo kale marka waa in la badiyo siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam in meel walba maragtaahay dadka looga sheekeeyo akhlaaq rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallam akhlaaqdiisii iyo hadyigiisii in ummadda la baro waa in ummadda dhagahooda mar walbaba lagu badiyo ku celcelinta akhlaaqdii iyo siiradii iyo hadyigii nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam waqti walba iyadoo lagu celcelinayo oo khusuusan haddana bishii uu dhashay nabigeena sallallahu alayhi wasallam bil munaasaba waa in mar walbaba nabiga looga sheekeeyo dhalinyarada iyo dadka waayeelka iyo ummadda dhan waa in la baro hadyigii iyo sunnadii iyo siiradii iyo akhlaaqdii nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka muslimiintana ay muujiyaan farxad iyo bogaadin ilaahayna ay in badan uga mahad celiyaan nicmadii weynayd nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo baraka calayhi dhalashadiisa ilaahan uga mahad celinayna naga dhigay ummadii nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam nooga dhigay rasuul iyo nabi rasuul dunida soo mara rasuulkii ugu khayrka badnaa ummadiisa naga dhigay ayaan ilaahay uga mahad celinaynaa muslimiintana dhammaan waan la qaybsanaynaa farxadda dalka gudihiisa iyo gudihiisaba meel walba ay joogaan waxaanu leenahay allah idin waafajiyo hadyigii iyo siiradii nabiga inaad raacdaan sallallahu alayhi wasallam dhexdeennana allah ku badiyo jacaylka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo baraka calayhi iyo tadbiiqinta sunnadiisa inay naga muuqato محبديسنا قلبنا إلهي سبحانه وتعالى الله نوجو وينيو وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله